ومسجد بسمس أهواك وحابة مركة هذا مشكلة أهبا dadkii wadaadada in ka midaba in masaajidiiba business laga dhigay waa garan oo dadkii dhaqaale ay sarhaali ka ahayn wax loogu qabanayo aanay jirin waa shay aad xaraam oo xagga sharciga hadii la eego shay hadaad qaado waxaad u qaado waa inaad ku bixisaa hadii kale qoladii inta dadka wax weydiisan nabigu uu lahaa waxay cunahayaan waa xaraam suxtun yaakuluha suxtan ma noqonaysa waa xaraam ayadoo xaraan qofku uu cunayo shay hadaad qaado oo wajigaad u qaado waji aan ahayn aad ku bixiso waad ku dambaabaysaa nagarad marka hadii maanta shacabku ay ku arkayaan adoo diin sheeganaya inaad xoolo noocaas intaad aruuriso guriga ku dhisato ku ganacsato ma garatay baawul qaaliya ku gadato walaadkii wax u sheegaya aad tahay maxay ku qaadanayaan marka maxay diinta ka aaminayaan وأبي حتى قلوينك أهل كتابك يكون دعانوا إلهي أولها يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون عن سبيل الله ذاتك المؤمنين تاي إن بدن وقلوينك أهل كتابك علماء دودي إيا بادريا شودي ذاتك هنتي دودي ويبادل قعونها يامبر ويسدون عن سبيل الله ذاتك وضدي ولأكثرين ويكلحين هاي oo wadaadka xaraan cunahaya oo ummadii dhamaa ay arkahayaan dadka madiin buu soo jiidahaya marka ya diinta asaga cilin weyday ayaga ma anfacaysa warku u sheegayo waa lisaanul haal aqna amma qaarin waa bal waxyaalahaas waxay kamid tahay waa waxyaalaha ilhaadka dariyay kamid tahay oo dadku markay ka amaana baxaan ninkii wadaadka ahay hortaagnaa oo ay leeyihiin maalin walba lacagtaan lagu qaadayo ilhaaha oo asagii ka muuqanayso hantida ku samaysanayo una yahay qofkii masjidka u dhisay ama maraakiis baa idin sabay u aaminayaan marka aamin maayaan bal dadku diinta inay ka cararaan ayadoo waliba ay dheer tahay gaalaysiintiina in la wado waa mushkilo kale takfiirkii baa wali la wada